Xafladda daahfurka ururka ardayda kulmis ee dalka Yemen oo si weyn loo soo agaasimay ayaa ka qabsoontay magaalada Cadan. Ururka kulmis oo ka kooban xubno iyo ergooyin isugu jira ka kala yimid guud ahaanba magaalada Cadan iyo weliba xerada qaxootiga Al-Qaras iyo sidoo kale inta labeenta u ah ardayda doorkooda Soomaaliya ay kulmisay madashada daahfurka xafladda ururka ardayda kulmis. Dhanka kale ayaa waxaa lagu martiqaaday safiirka Soomaaliya ee u fadhiya Koonfurta Suudaan oo maalmahan booqasho ku jooga dalka Yemen Mudane Xuseen Xaaji Axmed iyo bulshooyinka ku dhaqan magaalada Cadan. Tiiraanyo tabaalad darteeda ardaydu waxay iskooda u furteen daahfurka xafladda. Ugu horeyntii waxaa madashada daahfurka ka hadlay gudoomiyaha ururka ardayda kulmis Mudane Cabdulaahi Cali asagoo ku dheeraaday ahmiyadda uu maanta leeyahay kulankani iyo sidoo kale xafladdan daahfurkani. Dhanka kale waxa uu ka hadlay sooyaalkii taariikhda ururka uu lahaa kulmis waxa uuna ka mid ahaa hadaladiisa. Ururka Soomaaliyeed ee la aasaasay 1943 midowgan ayaan rajaynaynaa in uu noqdo miro ka soo unkuma ururka weyn ee aasaaseen dhalinyaradii 13 ahayd ee Soomaaliya aabayaasheenii gobonimo doonka haddii markaa gobonimo doon ay ahaayeen ay xuriyad doonayeen ay Ingiriis iyo Talyaani iyo Gumaysi la dagaalayeen maanta annagana waxaan raadinaynaa xuriyad oo dhan kala ah oo wadankii inaan ka qayb qaadano kobciisa bulshadeena Soomaaliyeed annaga oo ka bilaabeena wadanka Yemen aan joogno kadibna waxtarkeena aan u rarno mustaqbalka fog iyo kan dhowga magaalada Muqdisho iyo meel walba Soomaaliya ku tirsan. Dhalinyarada kaliya waxay ku midowaysaa maadaama ay tahay dad xaraka leh inay yihiin awoodii dhalinyaranimada hay laakiin waxa loo baahan yahay sidii jirku ugu baahan yahay maskax maamusha waxaan u baahannahay waalidiinteena odayaasheena duqoytideena hooyooyinkeena ayaan u baahannahay waxa jirta in la yiraahdo hebel waa qaxooti hebel waa muwallad hebel waa reer macalla waxaan rabnaa in alla baabiyo dhammaan magacyadan jiro oo aan sameeyno midow kulminay dhammaan dhalinyarada Soomaaliya kii hooyadiisa iyo manta abi Soomaaliya waa Soomaali waa in dhaqankii iyo luqadii iyo wixii Soomaaliya uu ku lahay la gaarsiiyo annaga Soomaaliya kiiman ina gaarsiinaa kii qaxootinimo ah waa inuu xiriir la yeeshaa kan macalla degan kuwa Cadan jooga waa inay sanaa xiriir leeyihiin inkastoo wadanku hadda qasan yahay. Dhanka kale waxaa hadalka la wareegay safiirka Soomaaliya ee u fadhiya Koonfurta Suudaan Mudane Xuseen Xaaji Axmed asagoo ka hadlay oo ka daran celiyay qaabab kala duwan iyo sidoo kale siyaabaha ururka ugu shaqeyso waxaana ka mid ah hadaladiisa. waxaan umaleynaa hadal badan meeshaan maanta kuma filla waa la dhididsan yahay saaxiibkeen waxaad moodaa hadal wax badan uu ka hadlay uu gudoomiyihii oo ku salaamay qaarkeed waxa laga yaabaa in dadka qaar markay maqlaan ay riyo u maleeyaan laakiin haddii dadaal la sameeyo waa wax la qaban karo laakiin xuduud uu Soomaaliya kala dhacdhigay isticmaalkii waxay u baahan tahay dadaal dheer oo intaa ka badan laakiin waxaan filayaa hawlo kale oo ka duwan inay dhalinyarada ay ka jiraan marka wax la qabanayo waa in loo kala qaybsadaa mid waqtiga fog iyo mid waqtiga dhow hadda maxayna haysta dhalinyarada maanta Yemen joogta maxaa laga rabaa maxay u baahan yihiin koow horta ayaga in dhaxdooda la isku xiro oo la mideeyo oo waxyaabaha u kala qaybsanay sheegaysay meesha laga saaro in ayaga iyo hay'adaha Soomaaliya mathalay wadanka jooga sida safaaradda iyo danjireena cusub Cabdulaahi xiriirkooda la wanaajiyo oo iskaashi dhaxmaro in duruufaha qalafsan ee dadka haysta sidii looga maareyn lahaa lagu dadaalo dadka qaxootiga ah waxooda raba inay wadankoodii ku noqdaan in loo fududeeyo kuwooda ku fikiraya inay tahriibaan oo badda ku dhintaan in laga wacyigeliyo horta waxyaabaha maanta loo baahan yahay ka mid tahay ninkii waxa ugaarsanayay laba fallaarood ku dhaceen midna xabadka uga dhacay midna dabada uga dhacay wuxuu yiri warba horta aan fariistay midda dabada laga saaro marka ka bacdi midda xabadka u imaadeen marka maanta waxaan u baahannahay fallaaraha dabada inooga yaalla inta iska saaro dadkeena Cadan jooga war maxay u baahan yihiin dadkeena Yemen jooga maxay u baahan yihiin basaatiin marka degan tahay dadka basaatiin jooga dhibabka haysta maxay yihiin see looga saari karaa yaa lala kaashan karaa horta inta inay ku diyaarsan yihiin ururada jira ee kala duwan la mideeyo marka in hoos loo soo dago oo riyo dheer oo fog
aanan isku mashquulin iyo Yurub oo kale la mid ah. sidoo kale ururka ayaa shahaado sharaf guddoonsiiyeen safiirka u fadhiya Koonfurta Suudaan Mudane Xuseen Xaaji Axmed iyo weliba qaar ka mid ah mas'uuliyiin kala duwan. xafladan ayaa waxaa lagu soo dhaweeyay jawi aad u degan iyadoo dhalinyaradu isku hambalyeeyeen isla markaana wajigooda ay ka muuqatay farxad iyo reenreen. Maxamed Jeelaani, telefishinka qaranka Soomaaliya, Yemen.